dowladnimada ciidanku waa ilaaladii xuduudaha cir dhul iyo bad ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed. ciidanku waa rajada kaliya ay ummadda Soomaaliyeed leedahay. dad iyo dalan ciidan lahayn macnaheedu waxa uu noqonayaa dalan dhul lahayn. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa u ballan qaaday ciidamada in madaxda dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay u dhameystiraan agabkooda iyo dhammaan xawqaadka ay leeyihiin si argagixisada ay u jabiyaan isla markaana ay uga cirib tiraan dhulka Soomaaliyeed. isagoo saraakiisha iyo taliyaasha ciidanka kula dardaarmay inay ku dadaalaan ilaalinta xuquuqda ciidamada si ay tusaale wanaagsan ugu noqdaan in ciidamadu ay leeyihiin hoggaan wanaagsan. ciidanku kama soo haro hoggaan iyo maamul, kama soo haro xuquuqda dhalinyaradaas dhiigooda shubaysa si loo ilaaliyo, kama soo haro in loo cadaalad faro, kama soo haro in qof waliba uu dareemo inuu kan kale la mid yahay, kama soo haro inay tusaale wanaagsan leeyihiin. taliyaha iyo saraakiishana waxaa laga rabaa inay tusaalahaas noqdaan. annaga madaxdaana waxaana la ka rabaa inaan ka shaqeyno xoogga saarno habeen iyo maalin in agabkiinu iyo xuquuqdiinu idin dhameystiran tahay. dowladda Soomaaliya ayaa xoog iyo waqti badan gelisay dib u habeynta ciidanka qalabka sida si loo ogaado tirada ciidanka iyo agabkooda. taasina waxa ay keentay in guulo waaweyn ay ka gaaraan ciidankeenu la dagaalanka argagixisada sida xoreynta iyo badbaadinta ammaanka ummadda Soomaaliyeed. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.